السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqod wanaagsan halkan waa janaalkeeni mahad bare insha Allah taala walaalayaal maanta waxaan hayaa cashir aad u xiiso badan waa qaybtii labaad isticmaalka half and has waxaan leenahay how intaan cashirka bilaabin fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe markii aad tiraadid waxaad dhihi kartaa kambalka taabanaysa all baa sidaysa insha Allah cashirka ma siigi doonaan dhamaad wada heli doontaa insha Allah taala like noo taaba noo share gare aad baad ugu mahadsan tahay oo kaaga mahad celinayna haddii aad la sii joogtay sidoo kale like noo taaba noo share gare insha Allah taala aad baad ugu mahadsantiin dadka walaalayaal inaad like taabato wax weyn maaha inaad muxuu ahaay aad share garayso wax weyn maaha culeys maaha haddii aad tahay dadka cashirka dhageysta ama aad cusub tahay intuba falaal subscribe cashirka haddii aad ka heshay haddii aad muxuu ahaay ku noo share garay markaste dhiirigelin wanaagsan inoo insha Allah taala intaas ayaan ka codsanayna waad ku mahadsantiin dhageysankiin insha Allah how sida to use loo isticmaalo half and has ayaan leenahay maanta with pronouns magacyadaasha loo isticmaalo pronouns magacyada markaad qaadanayso iyo waliba nouns kana waan dhaynaa insha Allah taala horaan u soo qaadanay markii loo isticmaalayo look at the different uses look at the different uses isticmaalada kala duwan for half and has half iyo has isticmaalada kala duwan aan eegna insha Allah taala halkani maanta waxaan rabaa inaan ku tuso adigoo pronoun la isticmaalayo iyo iyadoo magacyo la isticmaalayo bal farqiga u dhaxeeya in qaabkii loo isticmaalayo kala duwan yihiin iyo inay isku mid yihiin kale inaan tusan doonayo insha Allah magacyada waan keenaya magacina waan ku dhaxlaraya ano ku tusaya inay waxba farqi u meesha ku jiro insha Allah taala dhageys wanaagsan half to be used waxa loo isticmaalaa to be used with waxa la isticmaalaa to be used for markaan dhaynay waxa loo isticmaalaa laakiin to be used with waxa la isticmaalaa to be used for waxa loo isticmaalaa saas ay ahayd macna to be used with waxa la isticmaalaa la dawo withan I aniga we anaga you adiga they ayaga I aniga we anaga you adiga ama adinka they ayaga sida afartaas eray ama pronoun magac u yaalo ayaa la isticmaalaa halfta has to be used with waxa la isticmaalaa iyaduna he asaga she ayada it asaga xayawaanka saddexdaasna ayna third person singular lahayd way waxa la isticmaalaa has baa la isticmaalaa insha Allah taala aynu aragna qaybta koobaad dhammaan ninka has wuxuu haystaa work shaqo ayuu hayaa Ahmed ninka leeda has wuxuu hayaa work shaqo ayuu hayaa he asaga has wuxuu hayaa work shaqo ayuu hayaa intaan marka waa magaca koobaad ee dhammaan ninka magaca labaad Ahmed magaca saddexaad pronoun magac yaalo way he asaga way intuba waa ninki marka waxa laga yaabaa markaad luqadda baranaysa inaad tiraahdo man haddaan dhaa muxuu qaadanaya has ma qaadanaya waa la weydiiyaa waxa leeyahay arday waxay ku leeyihiin ayaa has mana man ninku has ma siin karaa he hadday meesha soo gasho has ma siin karaa mana wax kala duwan looma arkaya waxaa la rabaa inaad ugu aragto wax isku mid ah dhammaan ninka waa ninka ligi hore waxaan soo baray has to be used for one person or one thing hal shay la soo samaynay sidaas awgeed ninka ama Ahmed ama ninde ama hide waa isku wada mid wax ay ku kala gediyeen malaha sidaas awgeed waxaad isticmaalaysaa he oo magac u yaaliya pronounka has baad isticmaalaysaa Ahmed oo ninki magaciisa oo la yiraahdo proper noun magac khaas ah oo ninku iska leeyahayna has baad isticmaalaysaa dhammaan oo macna man oo ninki ah waa asagana magac common noun la yiraahdo magac guud ana has baad isticmaalaysaa wax farqi ah mar wixii wada ninki weeyaan maadaama hal shakhsi u yahay has baad isticmaalaysaa dhammaan has awag ninka shaqo haya waaday Ahmed has awag shaqo haysa Ahmed he has awag shaqo haya waa isku mid you can use either of this or any one of this you want ama man darafta ismaal ama Ahmed darafta ismaal ama has darafta ismaalisa adlawa marka mid ka soo qaatana muxuu qaadanaya has buu qaadanaya ama nin magaysi ama ninki ama magac u yaaliyo pronounka baa kan Ahmed has awag muxuu he has awag shaqo haya kale
similarly si lamid ah the woman naagta has waxay haysataa a hard work shaqo adag bay haysaa Marian has a hard work Marian shaqo adag bay haysaa she has a hard work shaqo adag bay haysaa islaantu waa gartan umalinaya waa sidoo kale haddaan the woman naagta idhahay iyo haddaan Marian magaceeda idhay iyo haddaan she idhay waa isku mid the woman waa common noun magaca guud weeyaan Marian waa proper noun magaca khaaska ah proper noun magaca khaaska waa naagta ilaada weeyaan she-na waa pronoun magac u yaali weeyaan labadaas magac oo kale wixii aga maarmi lahaa weeyaan she ayada saddexdaas magac ka doontaba qaadee fadlan has bay qaataa leanna waxa waaye qofkan waa qof keligiis ah weeyaan keligii weey hal qof weeyaan wax jamac maaha the woman naagta has a hard work shaqo adag haysta Marian has a hard work shaqo adag bay hard maxaa waaye adag she ayada has waxay haysataa a hard work shaqo adag bay haysaa waa isku wada mid ama woman qaado Marian qaado she qaado Marian woman waa common noun magac guud weeyaan Marian waa magac khaas ah proper noun baa lahaa she-na waa pronoun waa magac u yaala hal meel bay wada tagayaan marka has bay wada qaadanayaan you can also sidoo kale say waxaad dhihi kartaa thus saan baad dhihi kartaa you can also say thus sidaan baad dhihi kartaa thus maxaa waaye sidaan ayaad dhihi kartaa okay you can also sidoo kaleeto sidoo kale say waxaad dhihi kartaa thus saan waxaad dhihi kartaa Marian has a hard work shaqo adag bay haysaa Muno has a hard work shaqo adag bay haysaa waa laba naagood labadana waa mid iyo mar baan kala sheegay Marian markaan sheegaya waa hal qof has bay qaadanaysaa Muno markaan sheegaya waa hal qof has bay qaadanaysaa laakiin haddaan labadii gabdhood isku qabtoon hal mar kuu sheega oo aan conjunction wax la yidhaha ismaala oo aan labadii gabdhood isku qabtoon idhaha Muno and Marian and iyo waan isku xiray Marian and Marian iyo Muno haddaan labadii gabdhood israacaan labay noqdeen half bay qaadanayaan laakiin markaan keli u sheegaya has baan siinayaa mid iyo mar markaan ku sheegay Marian has a hard work shaqo adag bay haystaa Muno has a hard work shaqo adag bay haystaa laakiin waxaan rabaa inaan hal mar ku sheego Marian and Muno iyo Marian half waxay hayaan a hard work shaqo adag bay labadii hard work ku sheegay hadda mid baan ismaalay fiir laana labadii gabdhood aan isku xiray markaan isku xiray jamac bay noqonayaan half bay qaadanayaan oo halkaas fiirsaya Marian and Muno half a hard work shaqo adag bay wana they adoo yiri weyn they have a hard work shaqo adag bay yiri kala way macna insha Allah taala taasna waa haduu jamac iyo ereyga saas u qaadanaya markii kalikiina saas u qaadanaya insha Allah taala dhageysi wacan muxuu halkan b qaybta labaad waxaan ku isticmaalayaa qolii half qaadanaya male I aniga we anaga you adiga they ayaga afartaas half iska leeyihiin half bay leeyihiin u fiirso I aniga half fartaan inta badan lama la magac dhabo waxaan ka yahay they waa la magac dhabayo midna hadda waa kana halkan ku qorto Marian and Muno half a hard work shaqada baysan waxaad ku bedeli kartaa they half a hard they oo ayagoo Muno iyo Marian they have a hard work shaqada adag baan wadi kartaa ama laakiin I marka leedahay isma magac dhabayso hebel isma dhayso adiga you-na hebel lama dhahayo adiga marka qofka leedahay annaguna isma magac dhabayno anaga hebel ma dhayna marka sida awgeed waa I we you they ka kaafisa deyda laakiin magacooda qaadan kartaa waa kuwana Muno iyo Marian hebel Maxamed iyo Xasan saas dhigi kartaa thank you wayahay marka insha Allah taala waxaan leenahay marka I aniga half waxaan hayaa egan qoriban hayaa I aniga half waxaan hayaa egan ama haystaa we anaga half waxaan haysanaa ganis qoriyo we anaga half waxaan haysanaa ganis qoriyo where xagee half you adiga gan aade where hadda wataan ku sheegayo half ta marka halkan joogto waa main verb waa action ficil weeyaan I aniga half waxaan haystaa macna leedahay we anaga half waxaan haysanaa ganis overso laakiin halkan markay joogto ereygan gan ah oo go ah ayaa halkan soo galay gan bana go way halkan soo galay waa main verb action way hawsha aad samaysay weeyaan waa tagtay where xagee half you adiga gan aade half tan marka caawiyo weeye goodaas caawinaysa sidaas awgeed marka waxay noqotay waa magaceed macnaheedu uu baabay la soco
kan macno laalayn kan macno male waxaad leedahay where waa caawiya halkaas caawinaysaa where xagee have you adiga gan aad aaday oo ka have to about musiir fiirs to about fiir they ayaga have no malahan have no ma haystaan what to do waxay sameeyaan tan macnaheedu leedahay waxaad leedahay waa iyadoo waa verb way they ayaga have no ma haystaan what to do ay sameeyaan they have no what to do waxay qabtaan ma garana maanta waxba ma hayaan shaqo ma hayaan they have no what to do waxay sameeyaan male marka sidaas awgeed halkaas kala duwan insha Allah taala isaas oo simanaysa half iyo has markii kale oo macnahooda caadiga oo kala saaray ama caawiyaha iyo qaabka oo kala saaray insha Allah taala waxaad ku maqli doontaan oo ku arki doontaan qaabka tensiga oo matan present perfect tense aan qaadanayo kale yaan muxuu ahaaye aan ku qaadano insha Allah hadda meesha waxaad ku aragtay waxa weeyaan qaabka ay yaa kala qaata half yaa qaata has yaa qaata waxaan baranay intaas insha Allah taala thank you wa kuma 60 dhageysiin insha Allah taala assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh